salaad oo la dayaca waxaa ka ratibmo markiiba ku xidhiidhma naftu waxay doonayso la iska raaco la lumo salaad oo la xifdiyo oo la ilaaliyo waxaa ka ratibma naftu waxay doonayso laga manciyo loo eego maxaa xalaal maxaa xaraam waanu hanuuninay ee doorannay baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala qoladaas sifadoodu waxay tahay baa ilaahay leeyahy إidaa tutlaa calayhim aayaat الraxmaani kharuu sujadan wabukiya haddii lagu akhriyo aayaadka alle subxaanaه wa tacaala waxay hoobtaan oo daataan oo dhacaan iyagoo sujuudsan baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala oo ilmaynaya waxay sujuud u daataan oo u hoobtaan iyagoo ilmaynaya idan kooxdii wanaagsanayd markii ilaahay sifeeyey ee nebiye iyo rusul leh kooxda cagsigeeda abaa ilaahay sifaynaya fakhalafa min bacdihim khalfun koox xun baa daba martay kooxdaa waxaa beddelay oo dhaxlay oo iyaga gadaashood yimi khalfun baa ilaahay yidhi koox xun khalfu suu kooxdan xun ee gadaal ka timi maxaa u calaamad iyo astaana ilaahay subxaanaه wa tacaala laba calaamadood buu siiyey kow wuxuu yidhi adaacu الsalaaة salaaday dayaceen ayaa ilaahay ku tilmaamay salaaddii may xifdinin oo may ilaalinin oo may dhowrin ee waa dayaceen baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala dadkii dadka wanaagsan ka dembeeyey salaaddii bay dayaceen waxaynu naqaanaa salaaddu waa arkaanta islaamka ugu waaweyn waxay ka mid tahay wixii ambiyooyinkii hore lagu soo diray ee nebi moxamedna lagu soo diray qur-aanka markaad akhrido in badan waxaad arkaysaa iyadoo ambiyada salaad lagu sifaynayo salaaddaa way dayaceen baa la yidhi imaa inay dhammaanteed dayaceen oo ay salaadaba dafireen oo iskaga tageen ama inay wakhtigeedii dayaceen oo aanay wakhtigeeda tukanin ama inay arkaanteedii iyo shuruuddeedii dayaceen oo aanay la imanin sidii loo baahnaa in loola yimaado ama inay macnaheedii iyo khushuuceedii dayaceen oo haykalkeedii iyo muuqaalkeedii ay la yimaadeene macnihii iyo dhadhankii laga rabay iyo wixii la rabay inay yeelato aanay yeelanin ama inay jamaacaadkeedii iyo wanaaggeedii dayaceen oo ay ka dhigeen waxoogaa qabqab loo tukado oo guryaha lagu tukado si kastaba ha noqotee ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa qoladani salaaddii way dayaceen waxaa kaloo rabbi uu ku sifeeyey waattabacuu shahwaati waxay raaceen maa tashtahiihi اlanfus shahwaati nafs waxay naftu iska doontayee kasta xadhig umay yeelin naftoodae waxay naftu doontayna waa raacday umay eegin xalaal iyo xaaraan umay eegin rabbi ma raalli gelinaya mise ma raalli gelinayo may eegina waa raaceen kooxdaas baa ilaahay leeyahy fasawfa yalqawna ghayan siimaan dambe ama wakhti dambe waxay la kulmi doonaan baa ilaahay leeyahy alghayu fi اlluga ashar ayay carabtu u taqaanaa hayigu waa baadinnimo waa shar mufasiriintuna inta badan dalaalkay ku tilmaamaan mufasiriinta qaarkoodna waxay ku sheegaanba inuu yahay waadi jahannamo ku yaalla oo ay kooxdaasi ka cabbi doonaan oo geli doonaan ninkii dunida shar iyo bale la kulmay dee jahannamana inuu ka cabbayo ma fogaa